madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaadhan oo hogaaminayo kamid ah golihiisa wasiirada Soomaaliland ayaa safar shaqo ku ambabaxay dalkaasi Kenya. Safarka madaxweynaha kadib waxa warfadeenka kula hadlay halkan oo ah Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Afhayeenka madaxweynaha Maxamuud Warsame Jaamac wuxuu faahfaahin ka bixiyay madaxweynaha safarkiisa waxana uu yiri madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi hogaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu ambabaxay wadanka Kenya kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu iyo wafdigiisu ay ka heleen dhigiisa wadanka Kenya. safarkan madaxweynuhu wuxuu daaran yahay wadanka Kenya oo inaga dhaxeeyo xiriir diblomaasiyadeed iyo xiriir wada shaqeyneed sidii loo xoojin lahaa oo loo sii dardargelin lahaa. muddada ay ku sugayeen wafdiga madaxweynuhu wadanka Kenya waxay kulamo la qaadan doonaan dhigiisa wadanka Kenya iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa dalkaasi. madaxweynaha waxa wafdiga ku wehelinaya xubno kamid ah golaha wasiirada oo ay kamid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Cumar Cali Cabdulaahi iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Maxamed Axmed Caawid. insha Allah taala marka ay ku soo guriyeen noqdaan dalkooda wafdiga madaxweynuhu ayaan wixii faahfaahina ee kulamada iyo safarka ka soo baxana leedina wadaagi doona. safarkan uu Kenya ku tagayo iyo safarada kale ee dalalka caalamka ku tagaaba waxa weeyaan waajibaadkiisa shaqo dastuuriga ah. mar walbana dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay geed dheer iyo geed gaaban ugu jirtaa inay wadamada caalamka iyo dalalka geeska Afrikaba ay xiriir diblomaasiyadeed iyo xiriir saaxiibtinimo iyo xiriir wada shaqeyneed ay yeeshaan. Kenya waxay kamid tahay dalalka xiriirka aynu lahayn waxaanu laga wada hadlayaa danaha labada dal sidii loo xoojin lahaa. dawlad baynahay Soomaaliland, dawladda Kenya waa dawladda Kenya. dawladuhu waxay ka wada hadlaan arrimaha diblomaasiyadda, masaalixdooda iyo wixii mandaqada geeska Afrika iyo iskaashiga iyo horumarka ka socda. marka waa arrimo labada dawladood sida dawladaha kale ay uga wada hadlaan arrimaha u dhaxeeya ay wadaagaan weeyaan safarkan mid ku saabsan. Xamsada Baare RTN TV Hargeysa. mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac.